waxaan rabaa inaan dul istaago ahamiyadda iyo barnaamijyada xukuumaddani ay halbeega ka dhigatay bartilmaameedka u ah yoolka u ay hiigsanayso. awalan wuxuu ku bilaabay madaxweynuhu oo aragtidiisa siyaasiga doorasho ku galay kuna guuleystay xukuumadna ku magacaabay in la helo Soomaaliya heshiisa dunida heshiis la Soomaaliya intaanay horta adduunka la heshiin wayna iyada heshiis heshiiskaasi suu soo socdo ilaa qoys buu taabanaya waa afkaar waa hab nololeed mutual coexistence in dadku ay si wada jir u wada noolaadaan la istaqbalo la isku xidhnaado xagga ummad la isku torana haweenka cid ka barsataa ma jirto oo dadyo kala duwan bay isu hayn karaan isu keeni karaan taasi waa siyaasadda Soomaali heshiisa hadday noqoto abaabul iyo afkaar laga soo curinayo degmo maamul goboleed heer federaal waxa la rabaa aragtida haweenka siyaasadda ay kaleeyeen inay ka muuqato iyo matalaadaba taas marka halka kaga baxo qodobka labaad waa madaxweynuhu ka dhawaajiyay waa barnaamijka la yiraahdo ama siyaasadda oranaysa Soomaaliya hesha isku filnaansho dhaqaale barnaamijka SMP oo hadda maraya meesha la yiraahdo extended credit facility oo deyn cafintu markay dhalato la rabo in lacag fara badan la geliyo adeega bulshadu mabaadidiisa ugu waaweyn ku dhisan yahay waxa laga soo daraandreeyaa arrin caam ah oo adduun weynuhu ku shaqeeyo la yiraahdo poverty reduction strategy in la yareeyo saboolnimada deegalkan aynu ku noolnahay saboolnimada si loo yareeyana waa in wax soo saar la helo iyo dad tayo leh oo wax soo saara human capital bay hoos galaysaa boqolkiiba 50 ayaad halkan ku mitashaan waliba waa boqolkiiba 50 wax saameyn leh anagu taraggu iyo 50 kaas iska kooban tahay waxay dhintaa waxay abuurtaa xaaladaha la rabo in la xaliyo raga abuuro badi barakac hub qori siyaasad xumo cudurrada Soomaaliya hayaanada inaha subbay ka soo farcamaanay maanta xilligaynu sooran lahayn ruush baan nagu soo duulay iyo Mareykan baan haysta iyo Faransiis baa sida noo galay waa isla soo dhaafay soo sanayno inagu saa u nooleen inaga xaaladan abuurnay hal abuurka marka haweenka laga rabaa horta waa in qodobka labaad ee ah Soomaaliya dhaqaalahan isku filan aragti iyo barnaamijyo ka turjumaya la helo anigu markaan wasaaradda shaqada joogay waxaanu sameynay wax la yiraahdo labor market analysis waxaanu sameynay wax la yiraahdo human capital development mechanism baxanaano wax la yiraahdo maqasheenna bariga aan meesha joogi jiray baan soo yagleelnay baxnaano waxay daarnayd in hooyada Soomaaliyeed ee 4 caruur ku korsanaysa qoryoolay dusheeda ay shabaabna barakicisay dawlad la'aan ay hayso in ay at least hesho $100 oo ay caruurta dabka ugu saarto si inta ay xoog yeelanayaan wax soo saarayaan aanay u qaraar jabin oo qoyskaasi uu ayaamaha hore daryeel helo xirfad iyo aqoon markay helaanna ay noqdaan dad hadhow la cashuuro abaar baan hadda ka shaqeynaynaa 890 milyan oo dollar baa loo baahan yahay baa la yiri si abaartii looga jawaabo budgetka Soomaaliya intay tahay warogtii marka Soomaalida inay barato in cashuur la iska qaado weey cashuur ururin iyo adeeg bulsho iyo dhaqaalaha dumarka hormood bay u noqon karaan waxa raba marka mowduuca la yiraahdo inclusive economic growth wuxuu ka bilaabmaya dawlad efficient oo bureaucracy-yadeedu ay waxa ka shaqeynayso wasaaradda beeraha caafimaadka tabiyaha waa in halaburka ka yimaado haddaad eegto suuqa magaalada Muqdisho marketka ka jira ama suuq bacaad aad ama bakaaraha aad ama dumarka maxaa la yiraahdaa Saybiyaana iyo ilaa iyo Soobe iyo Xamarweyne wax ku iibinaya middle economic classka iyo lower pyramid of the scale ka labadaba waxa wax soo saaraya extended hours shaqeynaya waa haweenkii waliba meel bay ka shaqeynaysaa xataa musqul aan accessibility u lahayn oo meel ku tukata aan lahayn hadhow markay guriga hooyatana hurdo uma taale shaqa sugaysa that's why baa barnaamijyo khaas ah oo hadday noqoto xag daryeel mid waxa weeye qof dumar oo dhowr caruur haysato shaqadii karin daryeel bay u baahantay midda labaadna waxa weeye gabadhii inaan iskuulkii ka hadhin waxbarashadii ka hadhin aqoonna lagu kabo
dadka Soomaaliyeed waa ka diragsan yihiin qurbana annaga joogi jirnayo ninkay gabadho u maqan tahay un baa hadda nool qurbarka haga la joogo nin 40 jirsaday oo 40 ka sanaba la biilinayay oo reer dhaqdad Soomaaliya ugu imanaysa gabadh baa soo biilisay walaalkii ma soo biiliyo afkaarta Soomaalida way wada fahantay dumarku waa wada xawa cabdi waa intiina halkan fadhida waa wada adna aadan waa wada ayaan da fursad hadday helaan iyagaaba balaarsan iyo fursadii maxaa loo hortaagan yahay kulli hadda soo wadaan see loo furaya waxaan kaga baxayaa mawduuca isaga mar 2002 Canada anoo ku cusub baashir la qabtay la yiraahdo multiculturalism baa laga hadlaya ruux haweena oo Sherlock Holmes la yiraahdo waxay tahay wasiirka immigrationka iyo citizenshipka iyo dhaqanka iyo shirka abaabulaysa prime ministerkii baa jooga anana waa fadhinaa xoogay dhalinyaradii baa laygu diray nin weyn baan isu arkay dhalinyaradu soo xagga way barakaysan tahay ilaa 40 kaba iska gaadha marka waxa la yiri go'aan soo gaara oo aragti soo gudbiyay marka waxaan iska qornay dhalinyarada fursad la siiyo wixii baan gudbinay islaantii baa qabsatay Sherlock Holmes tahay yaa waxaan soo qaray bay tiri cid fursad idin siinaysa ma jirto baan ugu tiri oo maxaa dhacay baa la yiri waxay tiri anigu 24 jir baan isku soo sharaxay midba waa laysiin waay 28 jir baan isku soo sharaxay waxba waan heli waay 30 iyo dhowr baan isku soo sharaxay waxba waa laysiin waay teed for markaan mareeyay baan horta soo galay bay tiri afar goor markaan soo halgamay baa wax laysiiyay ma aniga idin siinayo waxbay tiri waa inaad iga qaadataan marka fursadda you must grab it by the neck bay tiri hadiyad banaan iska taalo oo fursadda ma jirto anaga marka gabadhaas bariga waxay nafartay Sherlock Holmes fursaddu in uu qofku isagu soo qabsanayo ee aan cidina hadiyad ku siinay anigu waxaan idin ballan qaadaynaa xukuumaddan dan qaran inaha ay joogto kulli rag iska ragiyoone in aanu ilna xariis la ku eegno oo waxtar u leh si marka policies kan looga mara dhaliyo horta abaabul iyo dagaal rag iska gali maay ilaa dumarku ay horkacaan ilaan haddii kale ninkii fulaha hadday tiraada iska seexo waa isku hurdayaan dagaal ma aadaha ha hadday noqoto adeeg bulsho iyo waxbarashana Rwanda dalka la yiraahdo waa dalalka 9% uu dhaqaalahoodu kordhay muddo u dambeysay 50% meel walba dumar baa haysta meelaha kale ee adduunka horumar sameysay waa Scandinavian 50% dumar baa haysta waxaan idin ballan qaadayaa in administration kama ka reform lagu sameynayana dumarka matalaadooda la ilaaliyo deliveryga marka la sameynayo oo programada la dhisan garanayana inaad idinku wax ka tiraahdaan hada security sector reform adiga jooga jihaan baa joogta kun dumaraatiina waxaan garanaya waxa la rabaa inaad janaan haddaad qaarateen korneelana aad keentaan oo aad kabtanna keentaan miski baad fadhidaan soo ma caafimaadkii dumarka nurse kaliya lama rabo dhaqaatiirta inay qaataan baa la rabaa waxaan kaga baxayaa economics kan isla garanay ta kale stabilization programs kana dadka la rabo markiiba in loo adeego waa dumarka drought response baan hadda leenahay 26ka dadka u badan ee nugul waa caruurta malnutrition ku dhacday iyo dumarkii la tacaalay iyo ninkii oo mirfashka fadhiya waan waxba u taray arrimaha resilience iyo dadka in degaankooda lagu celiyo IDP kamiyada wadiga waroontiina dadka ku daganay waa dumarkii caruurtii long term solutions si loo helo waa in afkaartiina aad keentaan dumarka wuxuu sheegi karee aad tirahdaan meeshan ha ku habsaaminay productive sector-kii ku noqda waxaanu leenahay 4 guddi hoosaad oo saameyn taban iyo mid hoosaba kula arrimaha waa guddiga arrimaha bulshada habla fara badan baa golaha wasiirada ka tirsan aqoontoodii iyo garashadoodii baa marti loogay waa guddiga siyaasadda loo dhan yahay matalaadii baa ku jirta waa guddiga wax soo saarka iyo dhaqaalaha 400 milyan horta waxa la gelinayaa caafimaadka damal baa la yiraahdaa 5 sano ka hor ma jirin 3 sano damal caafimaad 4 sano ka hor ma jirin 10 sano ka hor ma jirin laakiin hadda wuu jiraa 300 milyan waxa la gelinayaa waxbarashada hore uma jirin 200 oo milyan waxa la gelinayaa biyaha hore uma jirin يعني wax fara badan baa soo iftiimaya waxa soo dhan si la isugu xiro haweenku udub dhaxaad bay ka yihiin waa cross cutting issue anaga wax wasaarad kaliya lagu haynayo uma aragno all the ministries baad ka qayb qaadanaysaan waxaynuna markay dawladnimadu yar dhaqaaqdo sameyn doonaa
forums afkaartiinoo qoran oo cabiran oo cilmi ku dhisan aad ku soo sheegtaan representationkana waa ilaalin doonaa xafiiska ra'iisul wasaare haddaan nahay xukuumadda inahaasan ku soo koobaya